warbaahinta xuriyo waxay kaalin wax ku ool ka qaadataa horumarinta suxufiyiinta Somaliland waxay suxufiyiinta siisaa tababaro tayo sareeya waxay bulshada la wadaagtaa warar iyo barnaamijyo sugan dhexdhexaad oo lagu kalsoon yahay dhammaan suxufiyiinta tababarka ka dhamaysa kuliyada tababarka casriga ee Xuriyo Media Center oo ugu fiican waxay markiiba tababarka ka bilaabaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta xuriyo sida website-ka Xuriyo Newsnet oo wararka ku daabacaan iyo qaybta telefishinka Xuriyo 24 TV oo wararka iyo barnaamijyada ka sii daayaan haddaba aynu wada daawano qayb ka mid ah wararka ay suxufiyiinta kala duwan ay ka baahiyeen telefishinka Xuriyo 24 TV بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو وناسن داودياشيدا qiimaha qaayaha qadarinta mudane hawada nagala socotay daawadayaal waxa la soo gaaray intii aan idin soo gudbin jirnay war wixii dalka gudihiisa iyo dibadiisa aan idin ka haynay warkan caawa wixii idin ka imanaya telefishinka madaxa bannaan ee Xuriyo 24 TV xaruntiisa guud ee aan ku leenahay magaalada Hargeysa warkan caawa waxa si toos ah inii la socodsiin doonta anigoo ah Umul Khayr Yusuf Cabdi ku soo dhawaada qodobada iyada ugu doorka roole warkayaga caawa dagaal beeleedii ayaa saaka mar kale ka qarxay deegaano hoos yimaada gobolka Sool ururka ONLF iyo dawladda Itoobiya oo heshiis ku kala saxeexday magaalada Asmara ee dalka Eritrea madaxweynaha dalka Turkiga oo sheegay in maalinka Salaasada ay soo bandhigayaan cadeymihii dilka wariye Jamal Khashoggi hal sugaha Sacuudiga oo khadka telefoonka kula hadlay qoyskii suxufiga Jamal Khashoggi daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii warka imkii haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan wanaagsan guud ahaan baa khiyarta hawada naga daawanaysay waxaan ahay Cabdiraxmaan Gacayr oo ku soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga ee Xuriyo 24 TV oo idinka imanaya istuudiyaha koowaad ee telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa qodobada wararka caawa ugu doorka roolana waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa shir iskugu yeedhay madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya 12 qof ayaa ku dhintay weerar lagu qaaday kiniisad ku taala dalka Mareykanka daawadayaal kuwaasi waxay haayeen qodobada wararka ugu doorka rool leh haatan kuwaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال waxa la soo gaaray amintan idii soo gudbin jirnay war waxaan idii ka helay geega Soomaalida iyo caalamkaba warkana waxa ila socodsiinaya waa anigoo Muuna Cabdishakuur Xasana halkaad kala socotaan waa Xuriyo 24 TV xaruntiisa guud ku leeyahay magaalada Hargeysa daawadayaal qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaan waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ka hadlay maayirkii cusub ee ay dhawaan doorteen degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge shirkii golaha iskaashiga dawlad goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Garowe taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in sanad gudahood ay kooxda al-shabaab ka saareen dalkaasi Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكتن دمان باقيارتي إذا أنا تشعلنا هايو هالكن وحرية 24 TV حروتي سكول إما قانا دا هارقيسا إميكي هاتن وحن سوقارني داوضيان وقت قانو دي سو تهدين جرني وروحين لغا سوقاري دالك قديسا يدي بدي سبا هدي الله أود لو قلاد وركا وحاو ديارة أنا قو عبد القادر مكاوية قضبضا وركا ودور كرولنا وحاكمدا gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa ka hadlay weerar xalay lagu soo qaaday deegaano ka tirsan degmada Ceelaf Weyn dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay madaxweyne dumar ah loo doortay qaramada midoobay ayaa ka dayrisay heerka waxbarashada dalka Soomaaliya madaxweynaha Ruushka oo sheegay inay jawaab ka bixin doonaan haddii uu Mareykanku ka baxo xakamaynta hubka nukliyeerka daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobadii ugu doorka roonaa imikii haatan ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan
waxaan filayaa inaad uga bogateen muuqaaladaasi kala duwan ee ku saabsanaa qodobo ka mid ahaa wararkii hore ee suxufiyiinta warbaahinta xuriya hore uga baahiyeen qaybta telefishinka ee xuriya 24 TV. markan aynu wada daawana qaybahan uu idinka soo qaadnay barnaamijyada ay qabteen qaar ka mid ah suxufiyiinta warbaahinta xuriyo. bismillaahi raxmaani raxiim. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii maadaysiga oo toddobaadkiiba hal mar kala socotaan TV-ga caalamiga xuriya 24 TV. barnaamijku wuxuu si toos ah idinka soo gaaraya bartamihii magaalada Hargeysa. soo dhawaada barnaamijka maadaysiga. oo ku dhawaay walaal. adoo ku bilaabay magacaaga. walaal Farxaan baa la fahamay nafsiye. okay su'aal baan ku weydiiyay Farxaan. soo ku weydiinaya waxa weyn wax il kaliya leh haddana aan waxba ku arkin. wadi jarcaw ma. waa kabiya. ma garanaysid. ma garanay. soo dhawaada barnaamijka. okay su'aal baan ku weydiinaya adoo ku bilaabay magacaaga. magacaygu waa Khalid. okay wad ma santahay walaal waxaan ku su'aal baan ku weydiinaya soo ku weydiinaya waxa weyn wax il kaliya leh haddana aan waxba ku arkin isha. sheegtu waa labadii iyo barhkii habeenimo ee saacadda Hargeysa waxaanu banbaxnay xaqiiqda dhabta ee ku salaysan danyarta iyo darbajiifka magaalada Hargeysa ee caasimadda gayiga Somaliland iyada oo lagu guda jiro xilligii jiilaalka waqtigani oo looga bartay xilli dhaxameed isla mar ahaantaasina uu soo dhaco qabow aad u darani goobaha aanu u kuurgalnay ayaa waxa aanu kula kulannay ciyaal aad u da'yar oo aan haysan huga la iskaga dhigo dhexentaas sida habbustayaal gooyaal koodhadh iyo wax ka difaaca qabowga daran ee dhacaya meesha ay hoyga ka dhiganayaan ee ay ku galayaan afarta qof waa meelo ay dadkii lahaan jiray u qorshaysteen in lagu xareeyo riyaha isla mar ahaantaasina ka buuxo xafash aad u daran oo ku keeni kara saamayn caafimaad kulankiina dhex maray ayaa waxa u dhacay sidan barafkan uu Faysal sheegay والله وارتي لما أتكيسن كاري ترقيت بس بلغ صحيح لغ صوتوس مالنتي ندد باناركا كبرينا ذا قرعنا بحكمنا marka subaxii soo toostaan iyadoo xal oo dhan aad dhaxan iyo la kowsanayseen iyo qabow iyo baraf ayaa subaxii soo toostaan ba hawlihiin dib iyo cuntooyinkiin cid uga baridaan waxaan diidiina dad dhar iyo kabiyo furaashano keenay bustayaal baan diidiina aday naga naxayaan in magacaaga adeero خليف كورن برف كده حما يقوي لك كما سيحنا والله حاجة اسمها سيحنا مالنا مركب مستوي نمارس كما اسك سيحنا حاجة اسمها مالد تكسون مارس قلا كدنا صبح حورين كعيان دحنتو dadka ay toosinaya meesha oo doorka ka kacaawan soo meesha oo niman ku shaqeynaa kadibna meelaha iska seexana markii dambeena xaga ubaxlaana nocta kareed alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kula wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena miiska siyaasadda oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga xuriya 24 TV barnaamijkeena caawa waxay la socodsiin doonaa anigoo Cabbaas Cabdiseeda barnaamijku waxa igu martiya musharax Cabdiraxmaan Ismaan Cali Guhaad oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya jagada golaha deegaanka ee 2019 Cabdiraxmaan ku soo dhawow barnaamijka miiska siyaasadda iyo xuriya 24 TV aad iyo aad baad mahadsantahay waan ku dhawahay aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga aadna siisay Cabdiraxmaan barnaamijkeena maadaama marti ku tahay oo tahay musharax tartamaya golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxaan doonayaa ugu horeyn in aad daawadayaasha bal horta taariikhdaada oo kooban aad u dulmarto marna baxagal daa
xarunta tababarka saxaafadda ee Xuriya Media Center waxay u taagan tahay horumarinta iyo kobcinta suxufiyiinta. Waxay kaalin weyn ka ciyaartaa tababarka suxufiyiinta Somaliland. Suxufiyiinta ugu badan ee Somaliland waxay ka aflixeen xarunta tababarka saxaafadda ee Xuriya Media Center. xaruntu waxay bixisaa tababaro ku saabsan mihnada saxaafadda oo tayo sareeya. waxaa ka howlgala macallimiin aqoontoodu horumarsan tahay oo bixiya tababarada kala duwan ee saxaafadda. xaruntu waxay leedahay qaybaha kala duwan ee saxaafadda. xarunta tababarka oo bixisa guud ahaanba culumta sare loogu qaadayo suxufiyiinta sida loo diyaariyo wararka iyo tabaha loo raacayo, sida loo diyaariyo barnaamijyada kala duwan iyo qodobada lafdhabarta u ah barnaamijyo tayo leh, ku shaqaynta ama barashada kamarada iyo farsamadeeda, sida loo qurxiyo sawirada iyo muuqaalada iyadoo la adeegsanayo editing designing tayo sareeya. qaybaha warfaafinta oo isugu jira website-ka Xuriya Newsnet oo ah gadal wax ku oola wararka iyo sheekooyinka suxufiyiintu ay ku daabacaan, qaybta telefishinka oo ay wararka iyo barnaamijyadu ka baxaan. dhammaan suxufiyiinta waxaa lagu tababaraa qaab casri ah oo isugu jira audio iyo video system, maqal iyo muuqaala, waxayna suxufiyiintu ku qaataan tababarka practical. waxaan filayaa khiyaarta sharafta badan inay wararkaas iyo barnaamijyadaas ay yihiin qaar tayo leh, isla markaana ay mas'uuliyiinta warbaahinta Xuriya ay dadaal ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada suxufiyiinta soo jeediya wararka iyo barnaamijyada sida ay bulshada ula wadaagaan barnaamijyo waxtar leh. haddaba ma tahay qof jecel barashada saxaafadda? haddii ay jawaabtu tahay haa, ku soo biir bahda Xuriyo oo aad ka heli doonto tababaro sareeya oo lagugu bari doono sida loo diyaariyo wararka, barnaamijyada iyo guud ahaanba mihnada saxaafadda. waxaa lagu bari doonaa inaad noqoto sawirqaado wanaagsan, sidoo kale waxaa lagu bari doonaa qurxinta wararka iyo barnaamijyada sida editingka. wixii faahfaahinay intaasi dheer kala soo xidhi telefoonka shaashada kaaga muuqda amaba soo booqo xarunta tababarka casriga ee Xuriya Media Center oo ku taala dabaqa labaad ee Cimaaratul Khayr. ballanteenu waa kuliyada tababarka saxaafadda casriga ee Xuriya Media Center.